wasaaradda xanaanada xoolaha runtii horta waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaam waxaan filayaa waa maalintii koowaad ee horta inagoo isu dhan intii aan xafiiska joogay isu duwayaasha iyo agaasimaha guud iyo waaxiyo qaarkood ay howlkan isugu yimaadaan marka anigoo ka faa'iideysanaya runtii maadaama aynaan shaqo hore isugu iman intii aanu gobolada soo marnay mooyee intooda kale horta dee waanaynu isweji baranaynaa muxuu ahaa isu duwayaasha qaarkood baan horeba aanan arag marka kolley shaqada iyo waxa ay tahay waxa inoo dhameeyey agaasimaha waaxda caafimaadka maanta halkan waxaa ku qaadan doontaan one day trainingka ku saabsan muxuu ahaa daaweynta ay inaga caawisay hay'adda FAO marka nidaamka iyo procedureska la raacayo kolley halkan la idinku baraysan garan doonaa wuxuun baan idinku boorinayaa oo aan idinku dardaarayaa inaad procedureka laynayidhi mara iyo nidaamyada inaydan ka baydhin hadday wacyigelin tahay iyo haddii ay daatada sida loo ururiyo tahay iyo haddii ay formiska muxuu ahaa laga soo buuxinayo xanuunada kala duwan ay tahay in aad sideeda u raacdaan ayaan filayaa maadaama ay u badan tihiin dhalinyaro sida aan warka ku hayana idinka laftiinuna aaba iskaga cusub tihiinba shaqadan isu duwayaasha oo qofka ugu badani uu sanadii xoogay joogay odayaashii hore ay bedesheen waxa la idinka baahan yahay dardargelin dheeraada waxa la idinka baahan yahay shaqo dheeraada waxa la idinka baahan yahay karti dheeraada waxa la idinka baahan yahay aqoon dheeraada waayo odayaashii waaweynaaye hore wax badan oo aanay heli jirin oo facility ayaad helaysaan marka wax kasta oo u baahataan idinku waa si yar fudud baa heli kartaan marka procedureska iyo nidaamyada laynayidhi raaca inaydan ka baydhin baan runtii idin rajaynayaa report qurux badan iyo shaqo qurux badan inay halkan inooga soo baxaan baan rajaynayaa shaqadan inade waa shaqo yaroo iska kooban oo sidaa uu inoo sheegay agaasimaha waaxda caafimaadku oo treatmentkii aynu inagu samayn jirnay ayuunbuu hordhacu yahay keenii weynaa ee shaqaalaha iyo wasaaradda iyo ay ka wada qayb qaadan jireen maadaamuu inoo harsan yahay haddii la yidhi shaqaalihii kama wada qayb qaadan karayaan oo in yaroo kooban buu noqonayaa dee inama wada gaadhayo marka hadda shaqaalihiina idinkuna inaa saa ugu qancisaan oo aanay u qaadanin in laga reebay laakiin treatmentkii inuu soo socdo weynaa ee uu main noqonayo insha allahu tacaala taana kolley waa gaadhsiin doontaan shaqaalihiinnii waxaa kaloo idiin soo jeedinaya aan uga faa'iidaysanayaa maanta kulankeennan in aan idinku baraarujiyo shaqada inaad dardargelisaan howlaha xafiisyada inaad asadka iyo wixii xafiisyada yaalla ee dee qaranku leeyahay inaad sidiisa u daryeeshaan kormeeraa laydinku iman doonaa waa laydinku qiimayn doonaa dabagal baa laydinku iman doonaa runtii waa laydinku dabageli doonaa waxaa haysaan marka waa laydinku abaalmarin doonaa sanadkaa soo socda haddii ilaahayna gaadhsiiyo inta aynu wada joogno biidni illaahi tacaala marka qiimaynta iyo reportingkana waxay noqonaysaa wax laydinkula xisaabtamo marka taana inaydaan dhinac marin baan doonaya iyadana insha allahu tacaala agaasimaha waaxda xidhiidhka gobolada oo aan sanadadii hore active ahayn sanadkan runtii waanu empower garaynay marka isaga laftiisa shaqo dheeraada baanu ka rabnaa xafiiska inuu dardargeliyaanu ka rabnaa structurekii xafiiska waanu u dhisnay isu duwayaashii markaa reportingkiinii wixii idinkaga xidhnaa waaxda centraalka inaa idinku laftiinu aa soo marisaan oo aydaan agaasima waaxeedada kale iyo waxba aydaan uga baahanin agaasimaha waaxda aa ku xidhnaataan oo wada shaqayn dhow la yeelataan taana waan idiin soo jeedinaya biidni illahi tacaala marka waxaan idinku boorinayaa barbarkay ka baxdaa dee waa bakayla qalam